maxaa keeni karo vitamin D-gaaga inuu hoos u dhaco sideena ku garan kartaa vitamin D-gaaga inuu dhacay vitamin D-ga inuu dhaco waxaa keeni karo saddex xaaladood oo waaweyn midkood haddii uu jiro vitamin D-ga sidiisaba waxaan ka helnaa qoraxda maadaama qoraxda ka helno qofka haddii qorax ku filan jirkiisa uusan helin vitamin D-ga jirkiisa wuu yaraanayaa metabolismkiisuna wuu yaraanayaa vitamin D-ga marka badanaa waxyaabaha keeni karo inuu yaraado dhanka qoraxda waxaa ka mid ah in qofka uu bannaanka usoo bixin inta badan uu ku xareysan yahay guriga ama xafiiska ama meelaha daboolan ee qoraxda sida fiican uu arkin qodobka labaad waa in ay jiraan cudurrada qaar oo absorptionka ama in la soo nuugo dheefshiidkana laga soo nuugo dhankiisa in ay hooseyso ama cudurro badan oo keeni karo inuu dheefshiidka uusan fiicnayn fitamiinkan waa fitamiin oo fat soluble ah ama ku milmo dufanka maadaama dufanka ku milmo haddii absorptionka dufanka uu yar yahay ama dufanka in dib uu jirka u nuugo uu yar yahay way adkaanay markaas in uu markaa vitamin D-gii laga faa'iideysto oo jirka vitamin D-giisa uu fiicnaado aaday u yaraanaysaa waxaa jira cudurro ku dhaco beerka iyo kilyaha oo ayagana sababayo in uu markaas vitamin D-ga uu hoos u dhaco haddii ay jiraan qodobka kale waxaa waaye dietary intake ama cunista laftirkeeda waxa aa cunaysid muhiimada ay leedahay badanaa fiishka ama malayga dufanka leh ayaa aad markaas ugu badan yahay sourciga oo vitamin D-ga haddii isticmaalkiisa uu kugu yar yahay waxay keeni kartaa in vitamin D-gaaga uu hoos u dhaco iyo cunnooyin kale oo badan marka isticmaalka vitamin D-ga badanaa haddii uu hoos u dhaco waxaa run inaa isticmaashid supplementskaas waxay kaa saacidayaan calaamadaha lagu garto qofka vitamin D-ga inuu hooseeyo markaas in aad ka badbaadid sida daal fara badan lafa xanuun iyo wixii la mid ah magacaygu waa Dr. Axmed Yuusuf Maxamed ku takhasusay cudurrada guud iyo neef mareenka kusoo dhawaa Horyaal Hospital